magaalada Baydhabo ayaa ka qabday shir cilmiyeed muhiim oo diiradda la ka saaray kaalinta aqoonyahanka kaleey horumarinta iska falnaado ku bulshada shirkooda baas wada jiraan qaban qaabiyay hay'adda cilmi baarista horumarinta bariga Afrika ee DAD iyo mahadka nabadda koonfur galbeed Soomaaliya iyo la ka falangay mas'uuliyadda aqoonyahanka ee horumarinta bulshada intii soo dareer shirka ku qayb galay kooda baas qoto dheer ku doodana sida aqoonta cilmi baarista iyo hal abuurka qayb qaadada Quraan hoojinta dhaqaalo adkeynta nabadda deerowka horumar waara yoo shirka ku qayb galeen mas'uuliyiin aqoon-yahano cilmi baaris haween dhalinyaro qaybasho bulshada ankoreyntii shirkooda baa ku hadlay agaasimaha guud ee hay'adda cilmi baarista horumarinta bariga Afrika Dr. Ali Sheikh Ahmed iyo saas oo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose dib u heshiinta koonfur galbeed mudane Mustafa Sheikh Abdullahi boqolaal sano ayaan soo marnay inagoo isku filan oo kaalmadeed u baahnayn in marka meesha aan ku laabanno sharcan shirkan wuxuu ku saabsan yahay runaha marka la yiraahdo hawshaas waaye inaan isku baraarujino shacabkan koonfur galbeed iyo inta dhageysan doonto dhan waa isku mid waaye in si fiican la isugu baraarujiyo sidaan isu kaalmaysan lahay dawladeena gobolka iyo shacabkeena hadda meesha degan iyo jaamacaadkeena iyo dadkan cilmiga leh ee meesha fadhiyo nooc walba leh iyo inta inaga maqan inaan ka tashano insha Allah dhowrka maalmood ee meeshan insha Allah hawsha ka socon doonto in laga tashado qaabkii la isugu filaan lahaa runahan shirkan oo maartay macadkan nabadda iyo hay'adda dad ay iska kaalmaysanayaan waxa runahan qayb muhiim ah ka ah wasaaradda gobolka ayaa qayb muhiim ka ah dad mas'uuliyiin oo kale waaweyn baa qayb muhiim ka ah wala rajayna insha Allah intii sigeeyeen ku bowdi doonta munaasabadun saafii symbolism ku buubata intooyba fadhiisay qodob bes intana ka sheeg qodobka koowaad waliba ways oo kaashadana barnaamijku waan aan la hariiray ka dawladaha meel raayis macadka oo nabadda iyo meel raayis xarunta oo cilmi baariska oo dad milaasaytiin in qoranta lamadii way bas kaashadayana mowduuciisa inta ka aragaytan intii oo meel raayis in qabsoono intaas ku dib bulshada ku qayb galay munaasabadii aqoon-yahanada weydii su'aalo keedin xaalado iyo mowduucyada markaas ay ku hadlay waliba su'aalo si faahfaahsan ku jawaabay aqoon-yahanada ku qayb galay shirka saasoo kale aqoon-yahanada waliba way sheegana in haddii la badi kulamada noocan oo kale iyo suurtagalata in la deeray himilooyinka la hiigsado xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahi kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi kulligin yersan kastana mayl warsaday waliisu mas'uulku ku hay wal warsaday sidaas daraaddeed lanka aqoon-yahanka may waahi ulil amriga kumidey mas'uulu raacigu lanka ulul amriga ona afka kiika meeraanahay ulhaay iyo ulma meera ulhaay iyo ulma lamadan walaalin kulmiyahay meeta lamadooba mas'uulin ulul amru marka hadii qoyska tafiiri hadaa adig $1 soo galaysay marka laba cunug haysatay hadaa sideed gashidna kunkii 100 ama 200 naqnaa laakiin marka kun haysatay 500 ma soconayso taas marka maxay keenay hadii siyaasad qaran la helin ciyaalkan aan badino dhaqaalaha aan la badino ama ma ahay wadan badan najib ciyaalkan tabarteen ma aan iska yareyno nafsa option waa ma fahamta si self sufficient loo gaaro waxa waaye also ina quality-ga education-ka aan high ka dhigno quality education-ka doo high noqdo dadkii waxay gaarayaan aqoon just simple thing waxa ugu muhiimsan baxta in direction-ka aan raacno because markasta waqti aan nooga dhumo ina direction-ka bas isku sheegno